adduunyadu waa imtixaan wayna dhibaato iyo murugo badan tahay dadka isku si ma soo wajahdo waxa ayna qof waliba ku qaabishaa wajiyo gooni ah dadka qaar baa farxad iyo rayrayn ku qaata waqtiyadooda inta badan halka ay kuwa badanna la nool yihiin murugo iyo ciil iyo uur ku taalo iyo caro aan dhammaad lahayn qisadan waa qiso dhab ah oo ka dhacday Soomaaliya qaasatan gobolada dhexe ee Soomaaliya waana qiso aad u xanuun badan oo aan ugu magac daray ileen jacayl waa loo dhinta haddaba dhageystow si fiican u dhuux qisadan xanuunka badan iyo sida ay wax u dhaceen Axmed Yare wuxuu ka mid ahaa ardayda wax ka barata dugsiga mujtamac ay magaalada Beledweyne waxaana maalin maalmaha ka mid ah ay isbarteen gabar lagu magacaabo Suleeqa oo iyadana ka mid ahayd gabdhaha wax ka barta isla dugsigaasi isla markaana dhigata fasalka ama galaaska ka hooseeya Suleeqa iyo Axmed barashadooda kadib waxaa ku dhex abuurmay jacayl xad dhaaf ah oo midba midka kale u qaado ilaa iyo dhammaan laga ogaado iskuulka macallimiintana ay ka war helaan xanta jacaylka lamaanahan waxaana ay noqdeen kuwa iyaga si gooni ah isku tixgeliya markastana wada jecel in ay waqtiga isla qaataan waxaana caashaqa midba midka kale uu u qabo uu gaaray in haddii aysan isla joogin la iska maqlo telefoonka nin adduunyo joogo maxaa aragti ku laaban Axmed iyo Suleeqa waqtigii aasaaska jacaylkooda waxa uu ahaa waqtiga mid u heeliyay iskaba dhaaf in xitaa ay dhibaato arkaane saacadna iskuma dhaafin in ay isqoonsadaan ama ay isdagaalaan oo ay murmaan waayaha adduunyadu kulley waa cibaree cadceedii bidhaantana waxbay caan ku noqotay lamaanahan waqtigoodii hore iska iskula jacayl xididda mutay oo axdi iyo aaminaadna lagu heensimay muddo 3 sano kadib waxaa la isla meel dhigay in geedkii jacaylka ee in muddo ah la waraabinayay laamo ubax lehna soo baxshay in mirihiisa la gurto Axmed Yare iyo Suleeqa ay isku afgartay in ay yagleelaan reer oo ay hooy qura ku wada noolaadaan waxaana Axmed uu Suleeqa ka codsaday in ay fursad siiso si uu waalidkiisa ugu wargeliyo isagoo islaha waa bishaaro cusub hase yeeshee Suleeqa way ka aqbashay laakiin maxaa dhacay waa su'aal meesha ku jirta Axmed iyo hooyadii maxaa dhaxmaray waa su'aal labaad Axmed oo ahaa agoon aabihii geeriyooday isla markaana ahaa kan ugu weyn ama curudka reerka wuxuu aaminsanaa in haddii hooyadii uu u sheego arintan ay tahay mid ay ku farxayso laguna taageeri doono Axmed Yare waxa uu yimid hooygiisa oo ku yaala xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne waxa uuna durbadiiba uu bilaabay in uu la faqo hooyadii uu arintii u bandhigo وكاغا هويو ربي إيغو أغمي أقولو قيادة جكاغا إني ولاغا سيني hooyo sareedo oo ahayd maamada Axmed waxa ay u sheegtay in arinkaasi uu yahay mid wanaagsan haddii uuba rabo in uu guursado iyaduba jeceshahay laakiin ay horeyba ugu doontay Nasra oo ay habarirtiisa dhashay isla markaana ay Suleeqo isku fasal yihiin intii aysan u sheeginna oo isaga ka soo hordhacay Axmed ayaa durbaba bilaabay inuu ku cataabo hooyadiis kana codsado in ay iska hilmaanto Nasro ayna ku taageerto jacaylkiisa uu rabo in uu la aqal galo ninba waayihiisa waa laaloo tumaa labo kala baridayna kala warla hooyo Siraad ayaa u sheegtay wiilkeeda Axmed in loo taliyo isla markaana uu qaato talada la siinayo hadalka waalidkiisna uu maqlo marnaba Nasro mooyee qof kale uusan nolosha la qaybsan Axmed wixii habeenkaasi ka dambeeyay waxa uu bilaabmay jawi murugo iyo fikir ku dhisan habeenkiina maladin ilaa uu waagi soo guduto waxaana uu Suleeqa u sheegay in waalidkiisa ay ku gacan seereen aniga ayaa ku lahan doono ma ogid waxaa tahay qofkii ugu horeeyay aniga jecel isiiyey adigana waxaa tahay qofkii ugu horeeyay oo nolosha waxay tahay bare
nolosheeda adiga ayaa xaq u leh adiga oo keliya ilaa aniga haa adiga keliya noloshayda oo idin adiga ayaan kuu hibeyso ma ogid waddankaaga u dhimo iyo jaceylkaaga dartiis u dhimo waa isku mid maxaa yeelay jaceylkaaga isagoo ku shumay ayaad dhimanaysaa shumis ay dhimasho ka dambayso ankaasoo ma aha midaas waxa la isku calaacala kadib waxaa la isla meel dhigay in aan la kala maarmin oo nafta la isku hurayo axmed ayaa telefoon ku wacay nasra una sheegay waxaa taagan bal xaggeeda sida ay u aragto hase yeeshee waxa ay u sheegtay in ay horay u diiday laakiin duco iyo habaarna la hordhigay oo arrintu ay tahay laba daran mid dooro دورتا دانتالي اوغاي دغاها كفريسان لما نعبكينا nin dan leh madaale axmed yare waxa uu mar kale ku soo noqday hooyo siraad intuu garka iyo jilbaha qabsaday ka codsaday mar kale taageero jacaylkiisa ah hooyo laanta adduunyada maan joogin hooyo laakiin maamu siraad waxa ay axmed u sheegtay in maalinta beriya ma ahee saa dambe uu aqalgeli doono warkii hore war soo dhaaf axmed waxaa mar kale u baryey waa cusub wuxuuna hooyadii u sheegay in aysan dhici karin dunidana uu ka tegi doono haddii arrintaasi la meelmariyo hooyo siraad ayaa intay dhoola caddaysay kuna tiri waa lagu taliyaa ee adiga iskuma talisid warka maqal axmed inta uu ilmeeyey ayuu ku celiyey mar kale in uu adduunyada ka tegi doono haddii uusan helin suleeqa ileen waxaa gubaya gantaalada caashaqa taa beddelkeedana waxaa murugada la qaba oo fikirka dartiisa daamanka u qormeen suleeqa iyana jeclayd axmed yare dhammaadkii dunida axmed iyo dhaawacii duruuftii suleeqa axmed ayaa tegay goobaha magaalada beledweyne laguna iibiyo sunta cayayaanka wuxuu soo iibsaday sun ay tayadeedu aad u sarayso waxa uu yimid goor cisho ah kadib sariirtii hurdada ayuu fuulay waxa uuna horay u soo qaatay raadiyow ama rikoor uu ku duubay arrinta uu u dhimanayo iyo hadlo dardaaran ah oo uu u jeedinayo gabadhii uu jeclaa waxa uuna kadib cabay suntii isla habeenkiina halkii ayuu ku qoolbaxay oo jacaylkii dartiisa ayuu halkaasi ugu dhintay naftiisana u cadaabay suntina u cabay reerkii axmed ayaa goor dambe oo galabtii ah arkay in axmed uu hurdayo waxaana loo sheegay hooyadii maamo siraad ayaa damacday in ay kiciso misna waaba maydh oohin iyo baroor ayay isku dartay maamo siraad waxaana isku soo baxay dhammaan dadkii deriska ahaa waxaa furmay jawi murugo iyo tacasii ku dhisan allah kamaysan fiirsan maamo siraad arrintan inay keeni karto dhimasho dadkuna waxa ay aad uga murugoodeen dhimashada wiilkan xaafadda loogu jeclaa
asturaadda meydka kadib waxaa la helay cajalkii ku jiray raadiyaha iyo fariintii marxuumkii dhintay ee sunta cabay waxaana arrintii ka war heshay lamaanihiisa ama gacalisidiisa oo iyada darteed uu u dhintay inanka yar ee axmed yare iyadiina welwel xoog leh ayaa soo wajahay markii ay maqashay geerida gacaliyaheedii axmed yare maalmo fikir zaa'id ah baroor iyo murugo kadib waxa ay qaadatay caag bensiin ku jiro iyo taraq inta ay suuliga ama musqusha la gashay ayay dabkii isqabasiisay waxaana la arkay holac musqushii ka soo ifaya dadkii ayaa soo wada duday kadib maxaa dhacay mise way xiran tahay musqushii waxaa la bilaabay in la jebiyo misna waa suleeqa oo guban naf xunna ay ku jirto waxaa loola cararay cisbitaal muddo dheer kadibna waxaa la ogaaday in dadka uu u dhacay maskaxda suleeqa oo aysan waxba ogeyn sidaasina ku noqotay qof waalan ogow jacaylku waa wax loo dhinto qof waliba jacaylkiisa ha qadariyo waa iga dardaar